كاكع كرسيga xilligiisana kaga kac umada reer Puntland u dhaganaglow isimada maalin walba inta warka tiraahdaad khilaafaysidna jooji isimadu ayaga Puntland dhisay kii culimada ahaa nimanka halkaas ku shiray oo wax garadka yaga ahaa oo labeentayadii ahaa oo isimada yadu go'aamiyeen waxa alla waxay soo saareen baan ku raacsana doorashada la qabto 66 qofkii ku soo baxay haddii asagu soo baxana nasiib haddii ku kala soo baxana nasiib ciise maxamed markii la dhaho waa la bahal galiyay waxa laga dhigay in iyagu dawladaan ku yihiin inay burburiyaan baa laga dhigay annaga cid nooga baahi badan ama nooga xanuun badan ma jirto waan ognahay kursigu aad u macaan yahay ninka fariistana uusan ka kici karin oo barbar dhuganaya markii laga kaxeeyo la waqtigaaga waa dhaweeyay oo qaracmayo kursigiisii fiirinayo waxaanu kaga hadalnay maanta shirkan 4 arimood number 1 inaan taageerno shirkii ay qabteen isimada iyo nabadoonada gobolka Nugaal inay aan ku taageernay qodobadii ka soo baxay inay aan taageersanahay oo kala qodobka labaad oo ah inaan ku taageersanahay xukuumadda cusub oo loo asaasay Khaatuma State qodobka saddexaad aan rabno inaan shirkeega aan kaga hadalnay aan rabno inaan sii deeyno waxa kamid ah amniga caasimadda Puntland waxaan kaloo rabnaa inaan halkan kaga cadeyno in anagu hadii aan nahay reer Nugaaleedna lagu cambaareeyo waxaad ka soo horjeedaan dimuqraadiyadda annagu waxaanu nahay xilligii Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo hayay xilka madaxweynihii u horeeyay oo isku daya inuu wadanka gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah wayna socon weyday ilaa heer ay gaadhay in dhaawac iyo dhimasho ay ka dhacdo sida la aligeena oo ka tanaasulay madaxweynuhu taasna waxaan leenahay waa siyaasad madaxweynayaasha kale oo kaga sareeyay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole gabdhaha Puntland waa udubka isku haya qoysaska waxaan rabnaa Puntland oo mida iyo dadkeeda iyo dadkeeda oo mid yahay lagana shaqeeyo horumarka shirkan wuxuu bandhiga u yahay shirkii ka horeeyay ay qabteen waxa garadka nabadoonada culimada iyo dhalinyarada Nugaaleed intaba waxaan shirkan u aragnaa anagoo gabdhihii Nugaaleeda qodobadii ka soo baxay oo miro dhalka fiican iyo dhaxalgalka labadaba lahaa inay Puntland u horseedaya inay kaga baaqsadaan qalalaasa siyaasadeed lagana hortagay xukuumadda iyo damaceeda intaba waxaanu soo dhaweynaynaa shirkii ka horeeyay ee qabteen isimada iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada waxaan u aragnaa labada dhinacba inay dantooda ka dhaxarkaan shirkii miro dhalka lahaa ee qabteen isimada Puntland kan cambaareyn uga soo jeedinaya guddiga amniga gobolka Nugaal iyagoo hayo shaqo aan shaqadoodii ahayn waa inay ka shaqeeyaan shaqadii loo igmaday sida amniga caasimadda oo mariya heerkii ugu liitay oo sida aynu wad ognahayba habeenkii qof lugeynaya iska daaya hadii xataa gaarigaaga aa saaran tahay intii lagu soo dejiyo mobilka lagu weydiinayo habeenkii xaafadaha qaybtood aan laga seexan xabada ay dhacayaan waxaan leenahay shaqada guddiga loo doortay gudoomiyaha iyo tiimkiisa inay shaqadaas ku mashquulaan in shirkaas shir muhiim ahaa erayaashaas dad wax garada oo muhiim ah oo isimale oo odayaal leh oo labeentii gobolka Nugaale codka ay soo saareen inaynu taakiidino baynu maanta shirkaan qaban waana ku raacsanahay waa hambaliyo baanu leenahay madaxweyne waxa ku haray insha Allah wayseenu ognahay waa 5 bilood 4 bilood baan dhahay waxba bil macna ma lebishan waaba socotaa waxa muhiim ah shalay adiga kursigan markii lagu fariisinayay madaxweynayaal baa ka horeeyay madaxweynayaashu dadkay u shaqeynayeen in walba oo meeshan soo maraa oo dadku u shaqeynaya waan ognahay kursigu aad u macaan yahay ninka fariistana uusan ka kici karin oo barbar dhuganaya markii laga kaxeeyo la waqtigaaga waa dhaweeyay oo qaracmayo kursigiisii fiirinayo waan dareensanahay laakiin waa wax sharci ah waa indhiganay oo qoraal oo miiska inoo saaran sida darteed waxaanu ku faraynaa oo aan ku leenahay oo aanu kugu dardaarmayna anaga hablihii reer Nugaaleeda asagoo macaan baan walba ka kaco ka horeeyay asadaa ka tanaasulay shalayto adaa shalayta taaburburiyay maanta hanugu khasbin ina doorasho khasabaya shaati kul eeg nagu dul tolotid ma ka yeelayno shaati kul eegna ma tolanaysid in malakan qof iyo cod xabad baa hortaagan anaguna xabad ma doonayno qof iyo cod xabad baa dhex taagan xabadna ma doonayno dad masaakiin aan nahay
dad waxaanu nahay aan guuri karin dad waxaan nahay aan qaxi karin meel aan qaxna ma naqaano inuu naga joojiyo madaxweynuhu hoolka baarlamaanka ha soo galo 66 baa taagan January 4 bilood baa naga xiga halka soo galo nasiibkiisa ciise maxamed markii la dhaho waa la bahal galiyay waxa laga dhigay in iyagu dawladku yihiin inay burburiyaan baa laga dhigay annaga cid nooga baahi badan ama nooga xanuun badan ma jirto shalayna geed hoosis baa Puntland lagu aasaasay odayaal baa aasaasay isma aasaasay maantana waxa lagu tumanayo oo cagta la marinayo waa ismadii waan ku go'naa iyagaan raacsanahay 44ka guddigaan raacsanahay waa taasiidinaynaa dadka ka daba hadlaya iyo qoliyaha amniga magaalada mas'uulka ka ah waxa ka qabteen sidii gabdhii horeba uga soo hadleen mas'uuliyadda wadan magaaladu aad bay faraha uga baxday dhibaato badan baa ka jirta waa ka warqabnaa waxa ka qabteen intay daba joogaan dad masiirkoodii danahooda ka tashanaya iyagu amnigii lagu ogaa waxa ka qabteen waxaan Puntland inta dhisatay waa ehel waa in aad kala maarmi karin waa in aan colaad ku kala maqnaan karin waxa weeye in uusan madaxweynuhu ka tagin mahadho isaga sharaf u tahay inuusan mahadho ka tagin 66 in loo dareerayo isaguna waa og yahay inaguna waa ognahay laakiin madax adayga inuu madaxweynuhu iska daayo madaxweynaha iyagii weeye markasta anagu wax xun ka sheegi meeno oo waa madaxweynaha iyagii laakiin waa in uu madax adayga iska daaya madax adayga aan waxba ku suuragalayn madaxweynuhu waa inuu iska daaya intaas aan u sheegayaa dad baa kale waxa uqaasheenii iyo ismadeenii iyo waxgaradkeenii soo jeediyeen inaynu ayidno waa ku khasbana sababtu waxay tahay mar walba iyaga ayaa awal amar inoo ah waxay inoo soo jeedshaan inaan qaadano waa wax muhiim ah wixii marka turxaan lana aynu turxaanta ka bixino waxgarad baa gabdhaha ku jira hogaamiyaal baa gabdhaha ku jira codkaraa ku jira inay wixii turxaan la oo marka odayaasha ama waxgaradku ay turxaan u yeelan inaan inagu turxaanta ka bixino waa wax muhiim